بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaal kula wanaagsan halkani waa Gorfayn TV waxaynu ku soo qaadanaynaa hogaamiyaasha dalalka xubnaha ka urur goboleedka IGAD oo maalinta xadda kulan ugu furmi doona caasimadda dalka Djibouti ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdulla Hamdok ayaa la filayaa inuu shirgudoomiyo shirka degdega ah ee 38aad ee hogaamiyaasha dalalka IGAD oo maalinta xadda ugu furmi doona caasimadda dalka Djibouti kulan sanadeedkaasi waxaa looga arinsan doonaa danaha guud ee dhaqaalaha iyo xalinta qodobada kale ee muhiimka ah gaar ahaan khilaafka Soomaaliya iyo Kenya qatarta mawjadaha labaad ee cudurka COVID-19 heshiiskii nabadda ee dalka Koonfurta Suudaan iyo colaadda gobolka Tigreega ee Itoobiya kulan ay ra'iisul wasaarayaasha Suudaan iyo Itoobiya isbuuc hore ku yeesheen magaalada Addis Ababa waxay isku afgarteen heshiis horseedaya suurtagalnimada in shirweynaha soo socda IGAD looga xajoodo go'aanada suurtagalka ee qalaasaha howlaha samafalka ee gobolka Tigreega ee waqooyiga Itoobiya qodobkaasi ayaa ku aadan sidii wax loo qaban lahaa xaaladaha samafalka ee ka taagan gobolkaasi urur goboleedka IGAD oo la aasaasay bishii Janaayo sanadkii 1986 waxaa xubno ka ah dowladaha Soomaaliya, Djibouti, Kenya, Itoobiya, Uganda, Suudaan iyo South Suudaan si kastaba haatee ma kala cadda kulanka madaxda IGAD ay ku yeelan doonaan dalka Djibouti maalinta xadda in laga soo saari doono go'aamo lagu xaliyo khilaafkii Soomaaliya iyo Kenya amaba colaadda ka socota gobolka Tigreega ee waqooyiga Itoobiya intaana kale waxaynu ku soo qaadanaynaa hogaamiyihii jabhadda TPLF oo codsanayo magangelyo qaxootinimo Debretsion Gebremichael oo madax u ahaa maamulka gobolka Tigreega ee waqooyiga Itoobiya iyo dagaalamayaasha TPLF ayaa la sheegay inuu ku sugaya caasimadda dalka Koonfurta Suudaan ee Juba sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan dowladda dalkaasi baahinta lagu magacaabo sudanispost.com ayaa qortay in hogaamiyihii TPLF codsanayo magangelyo wax ka yar hal bil kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda Koonfurta Suudaan beenisay warar sheegaya inuu Debretsion Gebremichael ku sugayaan gudaha dalkooda bishii la soo dhaafay laba sarkaal sare oo ka tirsan shaqaalaha safaaradda Koonfurta Suudaan ee magaalada Addis Ababa waxay sheegeen in dowladda Itoobiya ku amartay inay muddo 72 saacadood kaga baxaan Itoobiya kadib markii uu madaxweynaha Masar Abdel Fattah al-Sisi booqasho ku tagay caasimadda dalkaasi Koonfurta Suudaan ee Juba warbaahin kale fadhigooda dhexeeya magaalada Juba waxay sheegeen in madaxweynaha Masar uu la kulmo hogaamiyaha TPLF balse lama soo bandhigin cadeymo muujinaya inuu kulankaasi qabsoomay sarkaal ka tirsan dowladda Koonfurta Suudaan oo la hadlay shabakadda wararka ee Sudanispost waxa uu tilmaamay in hogaamiyaha TPLF uu booqday dalkaasi 3 maalin kahor booqashada madaxweynaha Masar ku tagay Koonfurta Suudaan bishii hore balse uu dib ugu laabtay xuduudka Itoobiya sarkaalkaasi oo codsaday inaan magaciisa la shaacin waxa uu tilmaamay in Debretsion Gebremichael soo gaaray magaalada Juba ee caasimadda dalkaasi Koonfurta Suudaan bishii hore ee November 25 isagoo ka yimid dhanka dalka Uganda wuxuu intaas ku daray sarkaalkaasi inuu hal maalin kadib dib ugu laabtay dal ka mid ah dalalka bariga Afrika isagoo aan la kulmin madaxweynaha Masar sarkaalkaasi waxaa kaloo tilmaamay in Debretsion Gebremichael ka codsaday madaxweynaha Koonfurta Suudaan Salva Kiir inuu dhexdhexaadiyo TPLF iyo dowladda Itoobiya balse loo sheegay in arrinkaasi ay tahay arrin ay ururka IGAD uu kala xiriiro dhexdhexaadintaasi si kastaba haatee dowladda Itoobiya weli kama aysan hadlin joogitaanka Debretsion Gebremichael ee dalka Koonfurta Suudaan mana kala cadda inay dalban doonaan in loo soo gacan geliyo hogaamiyaha TPLF sidoo kale ma kala cadda mustaqbalka hogaamiyaha TPLF oo ay dowladda Itoobiya sidii xoogan u baadigoobayso iyo dowladda uu ka heli doono magangelyada qaxootinimo intaan ugu dambeysay waxaynu ku soo qaadanaynaa sarkaal sare oo ka tirsan militariga dowladda Suudaan oo lagu dilay iskoorimaad ka dhacay xuduudka Itoobiya taliska militariga Suudaan waxay ku eedeeyeen militariga Itoobiya maleeshiyadooda inay jidka u galeen ciidankooda ku sugnaa gudaha xuduudka Suudaan weerarkaasi waxaa lagu dilay 4 qof oo ku jiray sarkaal halka 12 kale oo ka tirsan ciidanka Suudaan lagu dhaawacay hadal qoraal ah oo ka soo baxay xarunta warbaahinta ee militariga Suudaan ayaa lagu sheegay in fiidnimadii Talaadada ee la soo dhaafay in la weeraray ciidankaasi oo ku laabanayay saldhigooda kadib markii ay soo kormeereen dhibaaxiga deegaanka lagu magacaabo Jabal Abu Tayoor ee gudaha Suudaan waxaa kaloo la sheegay
in ciidanka Suudaan jidka u galeen ciidan Etoobiyaan iyo maleeshiyadooda iyadoo weerarkaasi uu ka dhashay khasaare nololeed iyo mid qalab. qoraalka laguma sheegin tirada askarta ku geeriyootay weerarkaasi, balse ilo military ayaa sheegay in sarkaal darajadiisu ahayd gaashaanle ama majir iyo 3 askari ka tirsan ciidanka Suudaan la dilay halka 12 kalena ay ku dhaawacmeen. ilaa wareedyadu waxay kaloo sheegayaan in subaxnimadii shalay Arbaco ahayd uu dagaal ka dhacay deegaanada lagu magacaabo Al Osra iyo Wad Arood iyo Abu Tayoor oo ka tirsan gobolka Al Fashaqa oo u dhow xuduudka Suudaan la wadaago dalka Itoobiya. dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Suudaan Cabdulla Hamdok waxa uu xalay soo saaray qoraal uu ku muujiyay taageerada xukuumaddiisa ay u hayso militariga kadib weerarkiisa Itoobiya. waxa uu sheegay in golaha wasiirada xaqiijiyeen taageerada garabtaaga ciidanka Suudaan ee difaacaya xuduudaha iyo inay iska caabiyaan gardaro kasta oo lagu soo qaado dalkaasi. iskoorimaadkaasi ayaa wuxuu ku soo beegmay iyadoo baarlamaanka Itoobiya isbuuc hore sheegeen inay militariga Suudaan ay gudaha u soo galeen xuduudka Itoobiya isla markaana ay ceyriyeen ciidankii iyo dadka Itoobiyaanka ee ku sugnaa dhulka xuduudka ee Itoobiya. si kastaba ha ahaatee dalka Suudaan waxa uu haatan martigeliyay in ka badan 52,000 oo qaxooti Itoobiyaan ah kuwaasoo kasoo cararay colaadii ka dhacday gobolka Tigreega. sidoo kale isbuuc hore militariga Suudaan waxay Itoobiya ku wareejiyeen askar kasoo goostay dagaalka ka dhacay gobolka Tigreega oo u dhow xuduudka dalkaasi Suudaan. Gorfayn TV isha wararka warbixinada iyo dhacdooyinka.